وعنا wanaagsan daawadayaasha Nabad TV meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamij aan ugu talagalnay talo wadaag oo aan ku martiqaadnay Dr. Good Ahmed Roble Maxamed oo loo yaqaano Dr. Roble. Dr. Roble wuxuu ka howlgalaa magaalada Minneapolis ee Minnesota ee ariga Mareykanka. Doctorka waxaan rabnaa inaan maanta wax ka weydiino soonkii maadaama bishii barakeysneed ee Ramadaanta ayna soo food leedahay dadka siday ku soomi karaan iyo su'aalo aan rabno inaan ku ogaano qaabka dadka xanuunsan ay ku soomi karaan kuna cibaadeysan karaan. Doctor ku soo dhawow barnaamijkeena. waan dhawahay aad baad u mahadsan tahay Asmar adiga iyo teamka TV-ga nabadda aad baad u mahadsantiin. aad iyo aad u mahadsantahay Doctor horta su'aasha koowaad aan rabo inaan ku weydiiyo waa doctor waxaan nagu soo food leh bishii barakeysneed ee Ramadaanta qof walbana wuxuu doonayaa in Ilaahay uu cibaadeysto uu ka dhigo bishaas dadkii laga xoreeyay cadaabka maadaama aan nahay dad islaama waxaa jira dadka sooma bisha Ramadaan in qaarkood ay dawooyin u socdaan qaarkood xanuuno ay la nool yihiin qaarkood ay hadadan bukaan qaarna ayba u maleeyaanba in uu yahay bisha barakeysan bishii dietka dadkaas si guud ahaan marka hore maxaad kula talin lahayd? waa su'aal fiican Ilaahay hana gaarsiiyo bisha Ramadaan nagu soo fool leh Ilaahayna ha naga aqbalo kuwa naarta laga xoreeyana Ilaahay ha nagu wada daro aamiin. waa su'aal muhiim ah arinta dadka markay xanuun leeyihiin maaragtay cudurro ay jiraan siday maaragtay u soomi lahaayeen soonkooda u ilaashan lahaayeen daawooyinkana u qaadan lahaayeen marka waxay ku xiran tahay qofba waxa haysto daawooyinka uu qaadanayo ayay ku xiran tahay inta mar laga rabo inuu qaato hal mar miya laba mar miya saddex mar miya waa daawooyinku way kala duwan yihiin iyo qofka cudurrada hayo ayay ku xiran yihiin marka dhinaca kale aad ka hadashid xagga cuntadana waa arrin muhiim ah oo maaragtay qofka Ramadaankii inuusan ka dhigin waxyaabo maaragtay caafimaadkiisa dhibaato gaarsiin kara bishaas 29 maalmood 30 maalmood intay noqotaba hadduu Ilaahay yiraahdo inuu qofka maaragtay dhibaato xagga cuntada ah inuusan isku gaarsiinin. Doctor waxaa jira dad qaba cudurrada loo yaqaan sokorta dhiig karka dadka noocaas ma soomi karaan bisha barakeysan? dadka tusaalooyinka aad soo qaadatay dhiig kar ama cudurrada sokorowga waxay ku xiran tahay qofka waxa hayo dadku way kala duwan yihiin qof waxaa jiro sokor qabo kale haddaan tusaale usoo qaato cudur sokorowga ayuu qabaa laakiin waa qof sokortiisa ay basiid tahay oo xataa dadka qaarkood ku daaweeya cuntada sokorta kicisa ayuu aad iyo aad u yareynayaa cuntada ayuu ku daaweynayaa iyo socodka uu badiyay qofkaas oo kale waa wax basiid uu soomi karaa qofna waxaa laga yaabaa inuu aad iyo aad maaragtay cudurka uu la ildaran yahay oo daawooyin badan uu u baahan yahay marar kala duwan inuu qaato marka sokorti dadka qabay isku wada mid ma ah qofba si ay u haysaa marka cudurradii qof walba sidii uu u haysa ayay ku xiran tahay oo haddii la yiraahdo qof sokor qaba ma soomi karaa waxaan ku leeyahay wuu soomi karaa dadka qaar way soomi karaan dadka qaarna ma soomi karaan qofkay ku xiran tahay. Doctor sokorta noocee ugu daran oo is leedahay noocaas ayaa riski qofka ku galaya naftiisa haddii uu isiraado soon? cudurka sokorowga waa laba nooc ayaa inta badan loo qaybiyaa qaybta koowaad iyo qaybta labaad. qaybta koowaad inta badan waxay ku dhacdaa ilmaha yar waxaa laga yaabaa cunugii oo 5 jir ah 6 jir meelahaas oo kale inay kusoo baxdo qaybta labaadna dad qofka isagoo weyn ay inta badan ku dhacdaa marka labadoodaba wax fiican ma aha waa cudurro waay qof walbana maaragtay sida u hayso sida isku daryeelo sida maaragtay
maaragtay daryeel caafimaad uu u helo, daawooyin ku habboon siduu u helo, talo fiican siduu u helo, iyo isagana siduu isku ilaalin lahaa. marka qof waxaa laga yaabaa kii koowaad qaba oo xaaladiisa iska fiicnaato, qof waxaa laga yaabaa kan labaad qaba isagana ka daro, qof waxaa laga yaabaa kan labaad qaba haddii uu si fiican maaragtay talooyinka dhakhtarkiisa uu qaato iyo howlwadeennada caafimaadka markuu qaato uu dadaalo qofka markaa inuu ilaahay la garab galayo. marka kuma dhihi karo midkaas ayaa daran, qof walba duruufta uu ku sugan yahay ayaa wanaajinaysa ama xumeyn kartaa. doctor waxaa jira dadku markay soomaan, khaasadan dadkeena Soomaaliyeed, afur waxaan cunaa cuntada sambuuska, cabitaanka la qaso, burka. cuntadee ugu fiican oo kula talin lahayd dadka markay sooman yihiin inay ku afuraan? waa asmar, waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad noo saameysa. sababtu maxay tahay? dadka qaar baa waxayba aaminsan yihiin ama niyadda gashteen haddii bur iyo sambuus iyo bajiyo iyo kabaab iyo waxaas hadaysan helin inaynba u jirin afurba ma aragtay aynan cunin. marka fikraddan way qaldan tahay, waana howl badanna way u baahan tahay qofka sameynayo. inta badan gabdhaha ayaa qabta howshaas, wadankeena waan ognahay. marka culays bayna ku tahay. marka waxaa ka fudud qofkii intii waxaas dhibka badan leh oo waqtiga badan qaadanaya oo maaragtay saliid badan ay dhuuqayaan, burka iyo waan ognahay, bur saliida la dhahaaba, sambuuska sidoo kale, waxyaabaha la shiilay saliid badan ay dhuuqayaan. qofkii maalintii oo dhan qatanna inuu markaa iyada ku bilaabo, calooshii xataa diyaar uma aha. marka maalmaha hore waa laga yaabaa qofka inuu iska xiiseeyo hal ama laba cuno. hadduu qofka caafimaad qabo, qof maaragtay dhaqdhaqaaqiisa u fiican yahay, inuu xiise ahaan isaga qaato, maaragtay isaga hiloobo, waa iska wax weyn ma aha. laakiin qofka inuu kan mahine wax kale ma jiraan, afur kale ma jiro, taasaa qalad ah. caafimaadkana waxaa wanaagsan qofka inuu waxyaabo jilicsan oo jirka u wanaagsan, calooshin maaragtay habdhiska dheefshiidkan aan dhibaato gaarsiineyn, qofka inuu qaato sida maaragtay qudaar badan, ansalaato, maaragtay noocyadeeda kala duwan, khudrawaadka, maaragtay waxyaabaha cagaarka way badan yihiin, sida maaragtay saladka haddaad dhahdid, qajaar haddaad dhahdid, maaragtay tamaytadoo kale, yaanyada gudgududanta waaweyn oo kale, maaragtay basal tan dheertoo kale, basal cagaartoo kale uu ku darsado hadduu heli karo, iyo xilliga la joogana way ku xiran tahay. dhinaca kalena fruitka oo kale, waxyaabaha faakihaadka, miraha, hadduu cambo ku darsado, tufaax hadduu heli karo, haddii maaragtay moos xoogaa gobolo yar uu ku darsado, orange liintoo kale, liin macaantoo kale. marka waxaan ka wada hadalkayga khudaarta iyo faakihaadka inuu qofka ku bilaabo. sunnana waxaaba ah qofka inuu timir ku bilaabo, maaragtay 3 timir oo kale, maaragtay biyihiina uu ku dejiyo, taa si basiid inuu u sameeyo oo maaragtay sida diintaba ayna farayso inuu qofka calooshii 3 qayb u qaybiyo, oo qaybna maaragtay waxyaabihii adkaa cuntadii ahayd la roogayay, qaybna wixii la laqayay biyihii oo kale la cabayay uu ka dhigo, qaybna uu ugu talagalo inuu calooshiisii ay ku neefsato. marka qofka si uusan ugu dhicin dheefshiidka inuusan ka qaldamin oo qaras aynan ku kicin. marka waxaa wanaagsan khudaarta iyo faakihada ayaa aad iyo aad u wanaagsan, jirkana uu ugu baahan yahay, faa'iidooyin badan uu ka helaya, fitamiino iyo macdanada uu ka helayo uu jirka u baahan yahay. taa ayaan dhihi lahaa. doctor, dadka sokorta qaba ee sooman, sidaan wada ognahay waxaan ku afurnaa sida sunnada rasuulka uu sheegay alayhi salaatu wasalaam, timirta iyo biyaha. timirtu maadaama ay tahay geed macaan, qofka sokorta qaba ma cuni karaa? horta qof walba waa dadku way kala duwan yihiin. qofka maalintii oo dhan wuu sooman yahay oo intaas muddo maaragtay 10 saac laga yaaba, 12 saac marba maaragtay meesha uu ku sugan yahay ku xiran tahay maalintiisa intay dhan tahay. marka haddii intaas saacad qofka uu qatan yahay, qofka looma diidayo inuu timir cuno kale, laakiin tirada uu ka qaadanayo aan la isku haystaa. haddii qofka maaragtay
timirta xataa way kala duwan tahay. Timir hadda inta waxaan ku aragnay maaragtay aad iyo aad u weyn majduul oo kale tan la dhahayo waa waxaas leedahay midaan waa maaragtay bacrimin badanaa lagu sameeyey markaas iyada dhanba way buufsan tahay taasoo kale halkii xabaaba kaa badanba. laakiin timirta aan naqaanay 3 xabo oo kale hadduu qofka qaato waxay la tahay inay ku filan tahay marka maadaama maalintii oo dhan uu qatan yahay qofki. laakiin inuu iska badiyo oo maaragtay uu fariisto oo yiraahdo aniga waan soomanahay maaragtay fasaxan ahay ma aha inuu qofka mar walba qiyaastii uusan dhaafin oo tiro 3 xabo oo kale way fiican tahay inuusan ka badin aan dhihin lahaa. dadka laabjeexa qaba markay afuraan dareemo inay laabjeexmayaan ama boga uu xanuunayo sida la aaminsan yahayna dalkeeni waxaa la dhihi jiray qofkan gaas buu qabaa, kuwa maxaa kula talin lahayd oo dhihi lahayd sameeya markaad afurtaan si ay uga badbaadaan laabjeexa? asmar waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan. kow horta hore dadkaas laabjeexa waxyaabaha kiciya inay ka fogaadaan ayaan kula talin lahaa. maxaa ka mid ah waxyaabaha la shiilay oo kale sida maaragtay sambuuska iyo burka iyo bajiyaha iyo kuwa marka aad bay ugu kicinayaan. xataa hadduu qofka qabin waxaa laga yaabaa inuu dareemayo markaad cunto waxyar kadib inaad dareemayso ayaa la arkayaa. marka hadduuba qofka gastrita lahaa kuwa inuu ka fogaado waxyaabay ku kicin lahaa inuu ka fogaado ayaa wanaagsan. inuu ka fogaado xataa waxyaabaha maaragtay ay ku jirto biyaha burinayo oo kale soodada sida maaragtay Pepsiga ama Coca-da ama Fanta oo kale waa acid badan ay leeyihiin. acidkana calooshu wuu daran yahay wuu sii kicinayaa inay maaragtay laabjeexi iyo calaamadihii gastritada way sii kicin kartaa. marka inuu kuwa ka fogaado ayaa fiican. iyagaaba ku habboon dadkaas oo kale inay khudaarta xoog saaraan xogaayro mushaari ay cabaan maaragtay dadka aad iyo aad gastritada u haysa xataa maaragtay waxaa caano markay cabaan waa uga daraan. laakiin qofka wixiisa laabjeex yar iska basiid ah uu yahay waxaa dhici karta caano yar markuu ka bado inay ka dejinaysa. laakiin qofka xaaladiisa ay culus tahay caanaha xataa wuu uga daraa. marka qofka inuu ka fogaado waxyaabahan la shiilay sida sambuuski oo kale inuu ka fogaado oo khudaarta iyo inuu isticmaalo. dadka qaar baa waxay yiraahdaan haddaan cunno waxyaabaha faakihaadka macaankaas oo kale waana dhibayaan oo nagu kiciyaan dad baa yiraahda dadkoo dhan maaha. marka kuwaas oo kale inay dhinaca khudaarta oo kale khudaarta inta badan dhanaan badan ma leh saladkii oo kale qajaarkii oo kale broccoliga oo kale ama bagelka oo kale wadankeena aad buu u fiican yahay qofkii helay oo kale dhanaan saas ma leh inuu kuwa isticmaalo ayaa maaragtay kula talin lahaa. doctor waxaa jirta in waqtigu kala duwan yahay dalka aan ku noolnahay ee Mareykanka iyo dalkeenii hooyo ee Afrika. maadaama halkan inta la afuran yahay ay yar tahay waqtiga aan soomanahayna ay badan tahay waxaa jira dad dawooyin loo soo qoray oo la yiraahdo 3 waqti cun ama 2 waqti cun. dadka iyaga maxaa kula talin lahayd ee haddana raba inay stiil soomaan? kow horta hore qofka waxay ku xiran tahay sababta uu daawadaas u qaadanayo cudurka hayo waxa maaragtay uu qaadanayo. marka kow waxaan kula talin lahaa qofka inuu marka hore uu la tashto dhakhtarkiisii ama dhakhtaradiisii inuu la tashto oo marka uu ka codsado inuu la fiiriyo jadwal u sameeyo siduu daawooyinka u qaadan lahaa. waa runtaa dad baa maaragtay daawooyin kala duwan qaata. hal daawo waxaa laga yaabaa dhowr mar inuu u baahan yahay inuu qaato. marka qofki jadwalkiisa hadduu yahay daawadan ilaa lagama maarmi karo in aad 3 mar qaadato kale way adag tahay markaas 3 mar oo marka waxaa la rabaa inta badan inay isku waqti go'an u dhaxeeyo oo 8 saac oo kale haddii 3 mar tahay. haddii 4 mar tahay daawooyinka qaar 4 marka waxay noqonaysaa 24 saac 6 saac. marka ramadaankii waqtigii soonkii dhibay ku noqonaya qofka. marka haddii ay suurtagal tahay qofka marka hore inuu dhakhtarkiisa uu la tashto oo jadwal la sameeyo oo marka haddii uu la ogaado maaragtay haddii daawada dhowrka mar uu qaadanayo haddii uu ka dhigto 2 mar oo kale haddii loo heli karo waa marka inuu u saxo.
haddii kalena ay suurtagal ahayn oo markaa qofka cudurkii khatar uu gelinayo noloshiisa uu khatar gelinayo marka wuxuu gelayaa dadka ilaahay ruqsada siiyey oo marka wadaadada inuu la tashto wuxuu ka yeeli lahaa hadday tahay muddo gaaban daawada uu qaadanayo waa gooni taa marka gadaal ayuu ka keenayaa oo maaragta soo qalaynaya haddii ay tahayse cudur ku raagay uu ka tegaynin oona u baahan daawooyinka marar badan inuu qaato oo aan la yareyn karin marka inuu wadaadada la tashto culimada la tashto sidii uu ka yeeli lahaa doctor waxaa jira coronavirus inuu ku cusub yahay dunida hadeer qofka coronavirus qaba ee uu ku dhacay ma soomi karaa oo soonkii ma sii wadan karaa maxay kula tahay qofka horey ugu dhacay oo ka reestay waaba ka reesti karaa laakiin qofka hadda ramadaanka markuu dhashay kadib qofkaas haddii uu ku dhaco ya qofka waxay ku xiran tahay sida uu asiibay sida uu ugu dhacay calaamadihiisa dad waxaa jira safmar camal oo ilaahay fudeed uga dhigay dad waxaa jira xataa aanba dareemeynin dad waxyaabo yar oo qufac yar maaragtay dhanankii uu ka tegay inuu wax yar u dareemaya qofkaas qofna waa maaragtay inuu wax u baahanaaba daryeel zaa'id ah oo maaragtay maaragtay tubadii neefta lagu xiro ay u baahanayaan qofkaas horta meel soon maba jiro qofkaas waa qof noloshiisa khatar ku jirto qofkay ku xiran tahay haddii ay basiid tahay waxba dhib jirin uu xamili karo sida hergab oo kale hergab markuu kugu dhaco kale hadduu dhib weyn jirin oo noloshaada aadan u arkayn inay khatar tahay waad soomaysaa laakiin marka ay ku hesho hergabka xataa wuu kugu xumaan karaa oo waxaa dhici karta marka uu ka faa'iideysto biyo la-aantii oo kale inuu qofka dhibaato uu keeni karo iyo qofka xaaladiisa kale xataa inuu fiiriyo qof maaragtay cudurro kale aan lahayn oo caafimaad qabo waa okay laakiin qofka hadduu cudurro kale qabo oo marka hadduu soomo oo biyo la-aantii jirkii qalalayo oo ay keenaysa inuu u nuglaado coronaviruski inuu u nuglaado ka faa'iideysto marka waa khatar marka mar alla markuu isleeyahay qofkan noloshaada khatar geli karto aan waxaan dhihi lahaa qofkeenu iska afuro hadduu ka baqayo noloshiisa inay khatar gelayso sababtoo aan waxaan xasuustaa marka ramadaanka hadduu hergab igu dhaco kale inuu si xun kuu geli karo sababtoo ah wuxuu ka faa'iideysanayaa biyo la-aantii muddo dheer aad ooman tahay oo maaragtay viruska hergabkiyaaba ku wareerinayo laakiin haddii uu corona soo galo meeshii oo aan ognahay khatarta uu leeyahay qofka si uu noloshiisa khatar u gelin hadduu dhib dareemo qofka inuu si noloshiisa u badbaadiyo tala ahaan waxay la fiican in qofka iska afuro oo markuu ilaahay caafiyo uu ka faysto kadib uu dib u soo celiyo doctore waxaa jira hooyooyin gabdho uur leh ama xaamilo ah anagoo og in diinta islaamka ay u fududeysay hooyada nuujinaysa ta uur kale qofka xanuunsan waxaasoo dhan haddana kule waan caafimaad qabaa rabadaantayda ma rabo inay iga tagto waajibkayga inaan gutaan rabaa hooyadaas ilmaheeda khatar miyay gelisay mise waa caadi way soomi kartaa haddii iyada ay awoodo su-aashaas horta waa laba dhinac ayay wadataa dhinacna caafimaadka waa dhinacna diin ayay wadataa marka horta hore marka koowaad hooyada haddii ay caafimaad qabto oo ilaahayna maaragtay ruqsuu siiyey xataa hadda iyada waxba jirin oo xanuun maaragtay iyada kale aanay dareemin ilaahay wuxuu ruqsuu siiyey inay afurto hadday u baqdo nafteeda iyo nafta ilmaha uurka ku jira hadday u baqdo ruqsaa la siiyey marka inay qofka isqiimeyso haddii maaragtay wax yar dhibaato ay dareemayso in cunugeedii oo caloosheeda ku koreeyay inuusan dhibaato gaarin iyadu way adkeysan kartaa laakiin waxaa loo baqaya inta badan waa ilmihii uurka ku jiray oo wax kale aan helaynin hooyada waxay cunto ku xiran marka hooyada haddii ay wax yar isleedahay ama ilmahaada dhib keenaa xataa haddii hooyada wax dhibaato ayna dareemin ilaahay ruqsuu siiye marka wax isku yimaadaanna waxaa fiican dhanka fudud in laga fiiriyo maadaama qofka gadaal uu ka keeni karo waa taa midda kalena inay culimadana ay sii wareystaanna way fiican tahay doctore sidaan ognahayba dad badan baa aaminsan inay ku caafimaadaan
rabadaanka iyo soonka maxaa ka dhaxeeya soonka soomanaanta iyo caafimaadka maadaama ay sheegteen inay caafimaad badan dareemaan qof horta arintaa waxyaabo badan ayaa dhabka ah sababtoo ah qofkii waxaa hadduu qof sidiisa kale uu caafimaad qabay uu yahay markuu soomo oo afkiisa qabsado qofka waxyaabihii uu iska cunayay maalintii oo sokorta badan lahaa oo saliidda badan lahaa waxaasoo dhan ayuu ka nasanayaa jirkiisii habdhiska dheefshiidkiisii wuu nasanayaa maaragtay qashin saarkii kale keliyihii oo kale oo qashinka saarayay dhanka maaragtay maqaarka oo kale qashin ka soo baxay wixii way ka yaraanayaan mar walba wax aad maaragtay laqdaba oo caloosha geyso waxay u baahan yihiin in la sifeeyo oo shaqo badan laga qabto in dhiiggii uu qaado beerkii qaar loo diro qaar jirka loo kala wareejiyo kadibna maaragtay wixii qashin ahna mandhicirka weyn loo gudbiyo wixii qashin ahna la saaro wixii kalena ay maaragtay dhiig intay raacaan kadib haddana inta la isticmaalo nudihii jirka markay isticmaalaan wixii wanaagsanaa kala baxaan wixii qashin ahna ay dib dhiig ugu soo celinayaan oo marka dhiiggii haddana uu keliyihii ku soo celinayo marka howl badan ayaa jirkii u baaqatay uu ka nastay wixii zaa'idka soo korayay 11 bilood ee lasoo dhaafay marka bil wuxuu gelayaa jirkii oo ka nasto marka hadduu maaragtay qofka oo sidiisa kale uu wax dhibaato jirin waa run qashinka badan iyo cuntada oo qaarkood xataa aan habbooneen qofka uu iska badin jiray markay ka kala yaraato ayaa wuxuu qofka caafimaad uu dareemayaa marka wax jira waay taana marka waxay keenaysaa xataa intuu caafimaad heli lahaa dad baa waxaa jiro afurka iyo cashada iyo wixii ayay maaragtay isku xijinayaan oo culays zaa'id ku noqonaysa marka inuu wax fudud uu ka dhigto oo jirkii maaragtay si uu nasashada faa'iidadii laga lahaa in loo helo faa'iidadii caafimaadkii si loo helo ayaa marka qofka wax fudud oo maaragtay qudaarta iyo faakihada ay u badan tahay inuu xoog saaro qofka taa ayaan dhihi lahaa doctor ma jira xanuun ay dhaqaatiirta isku raaceen oo la yiri xanuunkaas qofka qaba ma soomi karo xanuun oo leeyahay hebel cudur hebel oo kale qofka qabo oo aan ogahay gooni ahaan ma jiro laakiin qofka cudurka hayo ayaa kale hal cudur ayaa noocyo badan ku imaanaya midna waa sida hore u niri waa basiid waay wuu fudud yahay qofna aad buu u baabacsaday oo tabarba uma hayo inuu soomo oo maaragtay daawoodiyo badan sidiisa maaragtay oonka badan uusan u adkeysan karin taa ayay ku xiran tahay qofka duruufta uu ku sugan yahay waxaa jiri karta dadka qaarkood oo qaba kasoo qaad kansar fiday oo kale oo qofkaas maaragtay daawooyin badan uu qaadanayo si maaragtay haddii heer maaragtay uu ku jiro weli la daaweyn karo uu u baahan yahay in la siiyo waxyaabo chemotherapy oo kale ah qofka markaas chemotherapy-ga ama radiation shucaaca lagu dilayo kale aad buu maaragtay jirkii tabardarro ayuu dareemayaa markaasoo kale waaba iska muuqataa qofka inuu si uu u kabsado daawooyinkii iyo shucaac ayaaba dhib kale ku haya cudurkii ayaa dhinac kale dhib ku haya markaasoo kale cudur oo maaragtay aada u fogaaday oo kale markuu yahay inuu afuro taas waa meesha way ku jirtaa laakiin cudur gooni ah oo hadda aan ku leeyahay cudurkaas ma ah keliya qofka haddii uu qabo cudur shuban ku rido kale ama matag iska socdo oo qofka dheecaanbax ku ridaya markuu yahay cudurka markaasoo kale si maaragtay qofkii shoog u gelin oo dhiiggiisii hoos ugu dhicin oo u suuxin qofkii oo noloshiisa khatar u gelin kuwaasoo kale waa lasoo qaadan karaa iyagana waxyaabo kala duwan ayaa sababi kara oo maaragtay ama ma cunto ayuu ku samoobay ma jeermis baa ku dhacay wax siday noqotaba shuban zaa'id qof hayoo kale ama matag iska socdoo kale marka xaalad uu ku sugan yahay qofka haddii noloshiisa khatar galayso qofka inuu afuro ayaa u fiican doctor waxaa jira caruur yaryar oo waalidiintu ay jecel yihiin mar walba yiraahdaan rabadaanta uu baranayaa hadduu jiro 7 sano hadduu jiro 10 sano la yiraahdo xitaa half day soon maalinta soon
ilmaha yaryar ee soonka la rabo in la baro laakiin ilaahay uusan waajib oga yeelin ayaga caafimaadkooda dambe hadhow dhib ma ku keenaysaa ilmaha horta ilmaha laftirkooda way kala duwan yihiin ilmo koriinkoodu fiican yahay iyo ilmo markooda horeba tabar daran hadday yihiin ilmo aada u tabar daran horta kuwaas in lagu qasbo maba ahanba in wax si fiican wax un la yiraahdo waa mugta maadaama aan waajib ku ahayn laakiin kuwa xoogaa haddii ilmaha ka soo qaad 7 way adag tahay horta 7 jir inuu yiraahdo in saacado yar maaragtay la tuso la xasuusiyo kale si uu ugu ababo oo tarbiyada u qaato saacado yar waa iska macquul laakiin maalintii oo dhan soon ma aha maadaama uusan ilaahay ku kalifin in ilmaha la dhibo ma fiicno saas baan dhihi lahaa sababta jirkoodii adkaysiga ayaa yar adkaysiga hadduu yar yahayna kama soo bixi karaan waxay u baahan yihiin jirkooda uu koraya koriinka maaragtay inaan dhib loo geysanin ilmihii haddii laakiin ilmaha qaangaarka wax yar uga dhiman yihiin oo kale kasoo qaad 12 jir wiil ah oo kale ama gabar ah oo kale markaas kale xoogaa adkaysi way samayn karaan oo haddii xaaladooda jirkooda iyo maaragtay ka muuqanin macluul haddaysan ka muuqanin dhibaato korkooda aynan ka muuqanin haddii ay fiican yihiin maalintiina ayn aada u dheereen waa iska macquul laakiin inta badan waxaa ka wanaagsan in saacado yar la yiraahdo si ay wax u bartaan kadibna ay afuraan aad ayaad u mahadsantahay doctore aqbalidda aad naga aqbalashay inaad barnaamijka nagala qayb qaadatid dadkaagana aad u sheegtid wixii karaankaaga ah ee ilaahay uu soo baray waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijka wax tala oo aad la wadaagaysa ma jira ugu dambeysa waa mahadsan tahay asmar adiga iyo tiimka kooxda TV-ga nabadda maaragtay mar walba waxaa wanaagsan qofka inuu fiiriyo dhanka fudaydka ah inuu fiiriyo nafsada in la dhibo ma ahan ilaahay safar qofka markuu yahay uu u baneeyay inuu maaragtay qofka uu afuri karo hadduu xanuunsan yahay sidoo kale inuu qofka uu yiraahdo isdhibo wanaag dheeraad ah taa ma ahan haddii uu xanuunsan yahay oo maaragtay daawooyinna uu qaadanayo mar walbana intaan ramadaankaba la gaarin waxaan kula talin lahaa takhaatiirtiisa inuu la tashto oo jadwalkii daawadiina maaragtay uu la dejiyo sidii markaa uu ku soomi lahaa hadday suurtagal tahay dadka kalena inay ku dadaalaan waxyaabaha u wanaagsan caafimaadka mar ramadaan kaliya ma mar kale xataa inay khudaarta iyo faakihaadka ay cuntadooda kusoo daraan aysan dhihin annaga khudaar markaan cunayno xoolo maan nahay xoolo caqli lahaan nahay annaga waana u baahan nahay khudaartaas waa waxyaabo badan oo fitamiino iyo macdana oo jirkeena u baahan yahay ayaa ku jira markaa inaan maaragtay la dhayalsan ayaa dadka maaragtay aan dhihi lahaa aad ayaad u mahadsantahay doctor Roble intaa waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii caafimaadka ayaan ugu talagalnay in bisha barakeysan ee ramadaanka su'aalaha dhakhtarka aan ku weydiino iyo dadka waxyaalaha qalbigooda ka guuxayay jeclaan lahaayeen inay dhakhaatiirta ka ogaadaan inta mid kan lamid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo